waxaan soo jeedin doonaa baaqii shirkan aan ku soo gabagabaynaynay baaqaas oo ah mid aan rabno insha Allah inaan ka midho dhalino shirkan oo ay isugu yimaadeen maanta qaybaha kala duwan ee beesha Gari Koombe ee degmada Tulli Guuleed sida cuqaasha aqoon-yahanka culimaadudiinka dhalinyarada ganacsatada qurba joogta iyo haweenka ayaa waxa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran kow waxaan si buuxda u cambaaraynaynaa falalkii waxshinimada ahaa iyo naxariis darrada ee ka dhacay qabalaha Kulule iyo Masle ee ay geysteen dadyow innaba aan ka talinaynin danta beesha qodobka labaad waxaan si buuxda u garab taaganahay xukuumadda sidii loo soo qaban lahaa tay eedeysanayaashii geystay falalkaas waxshinimada ahaa meel kasta iyo goob kasta ay ku sugan yihiin saddex beeshan oo ah beel nabad jecel halgan iyo nabadgelyo wada nolosha ayaa waxay si buuxda u cadeynaysaa inay taageersan tahay isla markaana garab taagan tahay hawlaha nabadgelyada ee labada degmo Tulli Guuleed iyo Jinacsani number 4 waxaan si ka go'naansho iyo joogto dawladda ula shaqeynayna sidii nabad buuxda isla markaana waarta loo gaari lahaa 6 waxaan dhammaan wadaagta nabadeynta iyo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidamada federaalka ka codsanaynaa inay dadaalkii ay ugu jireen nabadeynta si laban si loo gaaro xal waara number 7 waxaan sidoo kale cadeynaynaa in beelaha Soomaaliyeed ee dariska ah aan kula noolaano darisnimo walaaltinimo iyo Soomaalinimo number 8 waxay qurba joogta beeshu ballan qaadaysaa inay hiilhiyooba la garab istaagayso dadaalada nabadeynta ee ay xukuumaddu ku hawlan tahay number 9 ugu dambeyntii waxaan xukuumadda si naxariis leh uga codsanaynaa inay dhammaystirto hawlihii dib u dejinta iyo samate bixinta shacabka ku tabaaloobay colaadihii ahliga ah ee dib loogu celiyay goobihii ay deganaayeen ay uga soo barakaceen guryahooda wabillahi tawfiiq insha Allah waxaan rabnaa go'aanadaas iyo go'aanada kale ee soo baxay ee aynu halka ka jeedinay inaynu hadaal ka dhigo sidii aynu u hirgelino waxaan ballan qaadaynaa inaan fulinayno go'aamadaas halka ka soo baxay haddii aan fulin weyno cid allaale cidday doonto ha noqotee talaabo sharciga waafaqsan laga qaado wabillahi tawfiiq